qabashada shirkani wadatashiga qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad ee dowlad goboleedka Hirshabelle wareegiisa labaad ee ka furmay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne waxaa soo qaban qaabiyay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle oo kaashanaysa wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga xiriirka caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya. Shirkani oo ka socon doona magaalada Beledweyne maalmaha soo aadanaya waxaa ka qayb galay furitaankiisa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga xiriirka caalamiga ah ee dowlad goboleedka Hirshabelle, xubno ka socda wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga xiriirka caalamiga ah ee dowladda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmo, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Beledweyne. in ka badan 100 qof oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Beledweyne isla markaana u badan aqoon-yahano ayaa laga qayb galiyay shirka wadatashiga qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad si ay talooyin ugu biiriyaan tiirarka horumarinta qorshaha qaranka ee sagaalaad oo ay soo diyaariyeen khubaro Soomaaliyeed. gudoomiyaha maamulka degmada Beledweyne Maxamed Axmed Ibrahim Fodcade ugu horreeyna furintaankii shirkan ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in wadajir looga doodo qorshaha ama tiirarka horumarinta qaranka siday u kala ahmiyad badan yihiin. maanta waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama shirkii wadatashiga halkan iska dhacay degmada Beledweyne oo maanta dad aad iyo aad u qiimo badan aqoon-yahano ay joogaan dadka dadahaynaayana ay yihiin dadkii loogu talagalay inay shaqadaas ay wax ka qoraan. anaga degmo ahaan maanta waxaan leenahay aad baan u faraxsanahay maadaama nala weydiinayo wixii dhibaato ah ama baahida aan qabno aan ka wada tashanayno annaga iyo bulshadaynaba aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. waxaan leeyahay wixii wada tashi waxay u baahan tahay fikrad dheeraad ah in la geliyo fikir iyo maskax qof kastana ay ka hadasho wixii macquul ah annaga ka gobol ahaan aan ku gaari karno horumar aan ku tilaabsan karno danahayna aan ku buuxin karno. hadal oo badan oo qiimo lahayn lama rabo. waxaa rabaa qof walbaba inuu ka taabageliyo halkan wax qabad ah annaga horumarkeena ka shaqaynayo. سعيد محمود أحمد حريرية تيركا قرشها هرمارينتا قرانكا وزارة قرشينتا هي إسكاشيغا xiriirka caalamiga ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay iyo waliba marxaladii kala duwan ay soo mareen tiirarka qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad. guud ahaan dalka waxaa ka socda wadatashiga qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ee Soomaaliya waad ogtihiin intaan xornimada qaadanay dalkan wuxuu yeeshay 9 qorshe qaran 8 qorshe qaran. qorshihii qaranka ugu horreeyay waxaa la sameeyay 1962 ilaa burburkii waxaan yeelanay 7 qorshe. waa qorshayaasha aad aragteen dalka lagu dhisay hadday tahay jid, hadday tahay airport iyo hadday tahay beero iyo hadday tahay wadooyinba. burburka bacdi waxaa la sameeyay qorshihii sideedaad ee dalku yeesho waana qorshe ka kooban buu ahaa waqtigiisu ku egyahay 3 sano wuxuu dhammaanayay 19 sidaa darteed waa inuu dalku yeeshaa qorshihii qaranka ee sagaalaad. qorshihii qaranka muddo haddeer wadatashigiisu wuxuu socdaa sanada wareegiisa koowaad oo ku salaysnaa dhimista saboolnimada waxaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabelle. waxaa ka soo baxay ahamiyadaha aad u aragteen in saboolnimada lagu dhimayo oo gobolkan oo gobol qani ku ah xoolaha iyo beeraha bad leh isku xiran gobollo iyo dalal daris la nahay. marka waxaanu sheegteen ahamiyado dalkan uu kaga bixi karayo gobolkanba saboolnimada. maanta waxaan u joognaa wareegii labaad oo aynu isku xirayno istaraatiijiyadihii laga bixi lahaa saboolnimada iyo horumarinta gobolkanba. wadatashigan wuxuu ku salaysan yahay wadatashi ballaaran oo bulshada qaybadeeda kala duwan la yeelanayo. maanta waxaynu la joognaa bulshada rayidka ah. waxaan kaloo la kulmaynaa ganacsatada iyo dowladdaba. waxaa ka soo baxaya ahamiyadaha dadka reer Hirshabelle ay rabaan oo dalka lagu horumarinayo. waad ogtihiin waxaad sheegteen ahamiyado badan wadatashigai hore ee koowaad oo ay ka mid tahay in wadooyin kaabayaasha dhaqaalaha in la sameeyo webigan waqtiga biyaha uu keeno fatahanaya in biyo xireenno lagu sameeyo water management systemka la hagaajiyo
in hay-adaha cadaaladda la tayeeyo in serviceka adeega waxbarashada iyo caafimaadka la qaabeeyo ee gobolkan u leeyahay maanta marka waxaa laydinka rabaa inaad maskaxdiina tuujisaan oo aad wadatashigii wareegiisa labada beledweyn lagu qabanayo aad talooyin waxgal leh gobolkiina iyo qarankaba aad ku soo kordhisaan wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga xiriirka caalamiga ah dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Macalin Guleed ayaa ka qaybgalayaasha shirka u sheegay inay soo bandhigaan caqabadaha ka jira gobolka Hiiraan talooyin ay ku biiriyaan tiirarka horumarinta qorshaha qaranka ee sagaalaad qorshaha sagaalaad waa mid halkan u joogno inaan ogaano macnaha caqabadaha ama baahida ka jirta macnaha gobolka Hiiraan iyo guud ahaan Hirshabelle shirkan ama consultation ma aha seminar ma aha workshop waxay wasaaraddu u timid waxay tahay in macnaha isha xogdaashi iyo wadatashi aduga soo bandhigtaan caqabadaha sida macnaha ahmiyada ay kala leeyihiin qorshaha kan waa qorshe oo 5 sano la doonayo in macnaha lagu hago Hirshabelle iyo guud ahaan qaranka sida loo socono Hirshabelle waxay ka mid tahay gobolada wax soo saarka leh beeraha ama haddii noqon lahayd kalluumaysiga iyo haddii noqon lahayd xoolo dhaqatada marka saddexdii shay oo asaasi u ah macnaha jiritaanka bini aadanka waxay hodan ku tahay Hirshabelle especially macnaha isha magaalada aan joogno macnaha isha Beledweyne kulanka kan waxaan rabnaa inaad macnaha isha aad si dhab ah warbixin dhab ah aad uga hadashaan caqabadaha iyo ahmiyadaha gobolka uu leeyahay aad leedihiin hadafka iyo ujeeddada waxay tahay macnaha sidii loogu xoroobi lahaa gaajada sidii loo gaari lahaa isku filnaansho dhab ah waxaan moodaa 20 sano u dambeysay in gobolka iyo macnaha isha guud ahaanba dalka ay ku xirnaayeen macnaha ku tirsanaayeen gacmo shisheeye marka maadaama gobolkayga uu yahay gobol macnaha isha kheyraadka ilaahay macnaha isha ku manaystay hadday noqon lahayd xoolihii hadday noqon lahayd beerihii iyo haddii noqon lahayd macnaha isha kalluumaysiga in gobolkii aan u soo jeesano oo macnaha isha 5 sano soo socota aan ugu kaaftoonno in macnaha macaawino shisheeye ah ama gacan shisheeye aan wax ka sugno oo gobolka uu noqdo gobol isku filan oo saga deeqda kulankii ka horreeyay ee qorshaha sagaalaad wareegga kuwaad wuxuu ka dhacay Shabeellaha Dhexe waxay soo bandhigeen 5 ahmiyadood oo macnaha isha oo ay ka mid tahay dhinaca amniga oo ay ka mid tahay dhinaca macnaha isha infrastructure-ka ama kaabayaasha dhaqaale ama ay ka mid tahay dhinaca macnaha isha wax soo saarka iyo beeraha waa dhinaca Shabeellaha Dhexe ama Jowhar gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda maamulka iyo maaliyadda gobolka Hiiraan ahna kusumaha gudoomiyaha gobolka mudane Xasan Ibrahim Cabdulle oo ku hadlayay afka maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ay aad muhiim ugu tahay ka maamul ahaan shirka qorshaha horumarinta qaranka sagaalaad qaybtiisa labaad ee laga daafuray magaalada Beledweyne isla markaana dardaaran u jeediyay ka qaybgalayaasha shirka wadatashiga qaranka sagaalaad wareegiisa labaad ee ka dhacaya degmada Beledweyne muhiimad goobin oo tahay anaga ka maamul ahaan anagoo ku hadlaya afka maamulka gobolku muhiimadaas waxaan rabaa bulshada qeybaheeda kala duwan ee halkan fadhiya inay ka hadlaan muhiimadda ay leedahay wadatashigaas labada wasaaradood ee qorsheynta Hirshabelle iyo federaalkaba waan kaga mahad celinaynaa iyo bahda xiriiryaha iyo guddiga farsamo ee ka socda dowladda federaalka ee qorsheynta bulshada reer Beledweyne halkan fadhiya dhalinyarada iyo haweenka iyo waxgaradka iyo aqoon-yahanada kale ee halkan fadhiya maanta ujeeda waxaan rabaa inay ka hadlaan muhiimadda iyo qorshahan laga leeyahay waxaa waa inay ka hadlaan baahayaha jiro in laga wada hadlo annagu ka maamul ahaan waxaan xoogga saaraynaa amniga cadaaladda jidadka wadooyinka sidoo kale biyaha fatahaadaha dhibaatada soo noqotay waxyaabahaas ugu muhiimsan caafimaadka iyo waxbarashada wax kasta bulsho waxay ka dhisantaa waxbarashadu muhiimadda koowaad waxbarashada ay noo leh oo dareemi kartaan amnigu waa hagaaga waxbarashada dowlaha caafimaad sidoo kale laakiin fatahaaduhu soo laabtay degmada Beledweyne guud ahaan gobolka Hiiraan waxay ku haysaa in 3 bilood
ee dadku biyo yaraan u dhintaan 3 biloodna dadka ay u dhintaan biyo badan marka dabcan waxaa rabaa bulshada halkan fadhisa reer beledweyne haweenka iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanada inaad ka hadashaan muhiimadda in beledweyne u baahan tahay in laga sameeyo wadooyin muhiim u ah halbowlaha isu socodka gobolada dhexe marka muhiimaddaas waxa aad gudbisaan maanta oo wasaaradaha u gudbisaan ayaa noo idin ah idinala qori doonaa marka waxa aad gudbinaysaan muhiimadda ha noqdo waxaad ka fikirteen oo maskaxdiina aad u dhalaalisaan si dadkan horumar ay u gaaraan annagana xoogaan saari doonaa si hoose iyo si kora oon ula fadhiisan doonaa wasaaradaha annagoo u gudbin doono baahiyaha aad soo gudbiseen iyo waxa annaga aan ku dari doono oo annaga aan ogsoonnahay Khalid Maxamed Ismaaciil Kacse telefishinka caalamiga Somali News beledweyne